munaasabad lagu dabaaldegayo 60 sano guuradii ka soo wareegtay maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliyeed ee 1 Luulyo ayaa ka qabsoontay degmada Galdogob waxaana munaasabada ka soo qayb galay wasiirada labada gole ee dawladaha Puntland iyo Galmudug xildhibaano heer federaal qaybaha kala duwan ee haweenka oqaal nabadoono iyo marti sharaf kale waxaana munaasabada markii ugu horeysay ka hadlay General Axmed Taajir oo furay munaasabada waan aad ugu faraxsanahay degmada Galdogob oo intaas oo madax meelo kala duwan ka yimid ay caawa marti noogu yihiin lagu qabto xafladii sanad guurada 60aad ee Soomaaliya sharaf gaar ah u tahay degmada Galdogob maamuus bay u tahay waa wax Ilaahay looga mahadceliyo sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay ambassador Cabdisalaan Dhabancad oo ka sheekeeyay taariikhdii ay soo maray xilligii la taagay calanka dadkii shaqada ku jiray waan ka mid ahaa marka iyadoo la ogtiin in dhinac laga yimid oo Israaciil yimid waqooyi iyo koonfur la mideeyay waxa jiray dadkoo dhan shaki baa ku jiray shakigaasi wuxuu ahaa haddii la gafo ama si xun loo socdo ama hadal xun lagu hadlo armaa dawladnimadana la kala noqdaa marka qof waliba wuxuu istiilayay xaqaaga yay ka xumaanin dawladnimadu oo aan laga qaadin waxaan garan caawi halkan waxaan u joognaa laba munaasabad oo muhiim ah oo isdul saaran waxaana nasiib u helay gobolkan Galdogob gobol baaniri gobol waxa weeye farxad darteed ayaan gobol u eri haddii nin maanta caaw madaxweynaha halkan uu ka oran lahaa gobolkan Galdogob horaa laga qori lahaa markiiba horaa laga dhamayn lahaa laakiin tayda waxa laga soo qaadayaa nin farxad ay hayso oo ah yaani markaan fiirshay gobolka baaxadda uu leeyahay ama degmada baaxadda ay leedahay iyo dadka ku nool iyo sida ay ilbax u yihiin waa meel mistaahishay in gobol laga dhigo marka taas dawladaha ay u taallaa ugu dambeyn waxa soo xiray xafladda xildhibaan Cabdirashiid Daahir Gaboobe waa in konsulkii degmada Galdogob la dhisaa sida ugu dhaqsaha badan waa in maxkamadii Galdogob la dhisaa sida ugu dhaqsaha badan waa in mashaariicda dhamaatay oo sida saldhigga iyo suuqyada sida ugu dhaqsaha badan loo furaa waa in degmadan xuquuq kasta oo ay ku leedahay gobolkan ay ka tirsantahay ka heshaa waxaan ku amaanaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani intii uu joogay tilaabooyin wanaagsan buu ka qabtay gobolka waxaan leenahay madaxweyne inta uga la sii dhaw waxa ku dhiman dhameystir maantana gobolka joogtaa Galdogobna waa ku sugaysaa waxa kale oo madaxweynaha ka codsanaynaa si sharaf ku jiro maadaama magaaladan warkeedu soo noqdo gobol iyo lagu ceshay magaalada gobol waa noqotay markaa timaadina gobol u dhawaaqdo harjeen Cabdisalaan Maxamuud Yuusuf TV-ga caalamiga ee Universal Galdogob.